xaqiiqada aadan ogeyn ee ka taagan magaalada Muqdisho qaraxyada ka dhacay ayaan rabaa in aan dhibaatooyinka halka ka taagan kula wadaago. waxaan taasi mugyo miisaan la halkan u marnaya dhammaan dhalinyarada halkaasi ku geeriyootay qaraabadoodii iyo ehelkoodii iyo dadkii u dhawaa ee asxaab u ahaaba isla magaaladaasi Muqdisho isla goobta ah Lido Beach oo xeebta Lido ah waxa meeshaasi ka dhacay lama oran karaayo wuxuu ahaa qarax laakiinse wallahi cadin qof kasto oo damiir bini aadan leh oo inuu diir raxaya waa uu ka naxaya waxa halkaas ka dhacay oo indhiisa ku arkaya isla muuqaalkani commentigaalka ugu horeeya ayaan dib u wadaagi doonaa Telegramka muuqaaladaasi la soo galiyay waana ka daawan doontaan marka hore waxa ka codsanaya please in dadkaasi ehelkooda aad u duceyso masiibadaasi ay ku habsatay number 2 xogtani isla cali aadan muumin ayaa ina siin doona iyo sida ay waxay walba ay u dhaceen marka la yiraahdo siyaasad ahaan siyaasiyiintaasi Soomaaliya maanta ka taliya iyo meeshaasi xamarba inaga ka Soomaaliland waan isaynaa laakiin si bini'aadanimo iyo dadnimo ahaan iyo ummad ahaanba iskuma hayno ummadu waa ummaduna way ballaaran tahay ummadda in aqli fayow iyo inaan aqli fayownba waga buuxaan shakhsi kasta oo Soomaaliland ka soo jeeda waxa ka codsanaya inaad midani aad ku tusaale qaadataan inaad midani ay idin ahaato mid idin ah tusaale weyn oo aynad kaliya taaydan dhageysan dhacdooyinka meeshan ka dhacaya tani waxay ku soo socotaa dhul kasta oo Soomaali digto oo meel kasta oo macnaha Soomaali digto nabad ah Soomaaliland kaliya toon ka soo jeedo anigu kama hadlaayo laakiin dabcan ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay deegaankooda ay digtaan bulsay deegaan hanu leeyihiin ilaashada hadiiba ay nabad bulshada xaqiiqada aadan ogeyn ee ka taagan magaalada Muqdisho qaraxyada ka dhacay ayaan rabaa in aan dhibaatooyinka halka ka taagan kula wadaago sida ay wax u dhaceen ilaamaha ammaanka ee dawladda Soomaaliya aan ka soo xigtay waxay tilmaamayaan in koox hubaysnayd markii hore ee weerar ku qaadeen hotelka Beach View ee magaalada Muqdisho waxaynu daawanay muuqaalo muujinaya dad si nabad ah xeebta ugu qaadanayay waqti farxad leh laakiin isla daqiiqadii ay wax dhaceen durbadiiba geeridoodii la sheegay muuqaalada aan daawanay waxay xaqiijinayaan baaxadda dadka ay waxyeeladu gaartay oo ah dhimasho iyo dhaawac nabad sugidda Soomaaliya xubno kamid ah oo aan la hadlay waxay ii sheegeen in kooxda arxanka daran ee shabaabka ka tirsan ee soo weerartay hotelka Beach View ee magaalada Muqdisho ay ku bilaabeen qaraxyada waxa loo yaqaano bambaanooyin ay gacmaha ku wateen si hadii loo eego waa guul dawladda Soomaaliya ay ka gaartay la dagaalanka ka dhanka ah kooxda dhiigga shacabka Soomaaliyeed cabaysa ee shabaabka ah maadaama markii hore baabuur qaraxyo ah iyo qoryo waaweyn ay ku gali jireen hoteelada ay damcaan inay weeraraan laakiin taa iyada oo laga daba tagay ciidanka dawladda Soomaaliyeed oo dadaalaya waxay bogaadin ku mudan yihiin in ay ugu yaraan hoos u dhigeen qatarihi